وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في العقيدة، إن كستور الكي يقدم يكتل المامين موضوع آداب الخلاف، لكن وحن سكده إن كبر الله عليه إن كبر موضوع خلافك يا أسبابها كان يسير الله حل كره. anigoo weliba isku dayi doonaa inaan qaybta u badan saaro sidee loo xallili karaa ama dhibtaasi loo damin karaa. taa waxaan u door bidaya waa mushkila dadka muslimiinta aada ugu badan dhibna ku haysta. khilaafku waa mushkilad muslimiinta ka haysta. khilaafku waa mushkilad muslimiinta ka haysata nolosha dhammaanteedba. khilaafku waa mushkilad muslimiinta ka haysata nolosha dhammaanteed. waa dhibaatooyinka ugu waaweyne maanta aada moodo inay astaan u tahayba dadka muslimiinta meel kastoo ay isugu yimaadaan, diin ahaan, dhaqan ahaan, dad ahaan, wax walba waxaad moodaa in khilaaf la geliyo waktiyada dambe. waxaan jeclay mawduucaasi inaan guud maro qaybo kamidana aan isku dayo markaasi inaan xal u raadin karno. ugu horeyn waxaan leenahay inay dadku kala nooc noqdaan oo bini aadamku uu kala ra'yi noqdaa oo uu kala midaba noqdaa oo u kala wejiye ahaada oo cuquushoodu ay kala badnaataa oo siday wax u fahmayaan kala jaad noqotaa oo midabadooda u kala nooc noqdaa waa wax ka mid ah ilaahay aayaadkiisa marka hore. wa min aayaatihi khalqu asamaawaati waalard waاkhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fii dalika laaayaati lilcaalamiin. waa wax baynu leenahay sida wejigeenu u kala gedisan yahay ayay maskaxdeenu u kala gedisantahy. sida basamaat ulyad, gacantaan qof walba suulka markuu wax ku saxeexo uu mid gaara u leeyahay ayay maskaxahayna saarina u kala gedisan yihi. idan inaynu kodi isu noqono, yani qof qura inuu dadku wada noqda iyadu waa gayru macquul. ilaahay baana ugu talagalay subxaana watacaala inay saasaan u kala gedisnaadaan. weliba waxaan leenahay ha kala gedisnaato isku wada garaad maaha, isku in wax kama wada aragto. ilaahay baana qur-aanka ku le wakhuliqa alinsaanu daciifa, dacfi ayaa dadkao dhan iskaga wada jira. waxaan kaloo leenahay ilaahay baa ballan qaaday subxaana watacaala hadduu doonayo dadkan iyo noloshan iyo waxan oo dhan mid qura inuu ka dhigo, laakiin inuu u doortay inay sidatan ahaadaan. walow shaaa rabbuk lajacala annaasa ummatan waaxida walaa yazaaluuna mukhtalifiin ila man raxima rabbuk walidalika khalaqahum. ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana watacaala hadduu ilaahay doonayo dadkoo dhan wuxuu ka yeeli lahaa ummatan waaxida, nuuc keliya alla ka dhigi lahaa. laakiin ilaahay baa wuxuu leeyahy walaa yazaaluuna mukhtalifiin, kama zuulayaan inay kuwa iskhilaafsan ahaadaan inta uu alla u naxariistay mooyaane. in iyadu naxariis heshay oo naxariista xagga alle ka timaada ee ilaahay qur-aanka ku leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, naxariistaasi inta hesho mooyaane inta kale saas bay isu khilaafsanaanaysaa. ilaahay baana walidaalika khalaqahum. waxaan leenahay waa wax caadiya marka hore in dadku waxyaabaha qaar ku kala gedisan yihin, bale adiga iyo aragtidaad shalay rumaysnayd beri inaan rumaysnaan baa la arkaa. talooyinku siday shalay kuula muuqdeen maanta marka macluumaadkaagu kordhaan ama aragtidaadu korodho sidaad shalay wuxuu arkaysa inaad u arag baa la raba ayaa dhacda. laakiin khilaafku waa laba nooc, ama waxyaabaha dunida yaal iyo bini aadamku laba qaab buu u fakeraa. dadku inta badan wuxuu iskhilaafsanyay markaan xaqiiqada lahaynin. xaqiiqadu markay maqan tahay ayaa mutuhisku jooga. hadday xaqiiqadu joogto
nutuhisku wuu dhamaada. masalan scienceska waxyaabahan iyagu inoogu bixiyeen natural sciences naturena ma jiro, ilahay baa abuuro makhluuqaadkiisii. pure scienceska waxaa la yidhaha masalan dadku isku waafaqsan yihi aragti ma kala leh. masalada cilmiga scienska hadduu buudi soo helo iyo hadduu kristan soo helo iyo hadduu muslim soo helo waa tii un, waa qaacida waaxida. waayo laab baa la geeyaa, dabeetana waa la tajribeeyaa, dabeetana xaqiiqadaa caddaata. xaqiiqadu markay caddaatana waa iskaga mid xaqiiqadan qofkii caddeeyey inuu kristan ahaa iyo inuu muslim ahaa iyo inuu buudis ahaa. saa daraaddeed bini aadamku scienceska waxay u yaqaaneen iskuma khilaafo, ama natural scienceska, laakiin waxaa artka la yidhahdo isku khilaafa, ama human scienceska waxay yidhahdaan alculuum alinsaniya. human scienceku ma aha scienceska bini aadamku shaqeyle, waxa weya scienceska caqliga bini aadamka loo fiiriyo isagoo asalka u yihi. waa falsafad, waa dhaqaale, waa siyaasad, waa maamul, waa aragtiyo, waa dhaqan, waa tarbiyad, waxaasoo dhan bini aadamku isku kala gedisan yihi. waayo xaqiiqadiisaan caddayn, dabeetana qoloba ra'yay ka dhiibatay, qoloba sibay ula muuqatay, qoloba sibay ula muuqatay bay taagan tahay. laakiin waxaan leenahay waa min raxmat illaahi caza wajal waxaa kamid a inaanu bini aadamka ku daynin kala fogaanta ay kala fog yihiin ama kala aragsida yihiin, inuu usoo diray rasuul muxameda calayhi salaatu wasalaam oo uu diinta xaqa ugu soo diray si uu u kala caddeeyo fiima ikhtalafuu fiih waxay dadku isku hayaan. rusushuba waxay u timaadaa inay kala caddaysa maxay fiima ikhtalafa annaas, waxaanaan dadku ra'yiga isugu keenaynin ayay rusushu u timaadaa inay usuul keento lagu kala baxo. haddaba intaanan taa u gudbin waxaan guud marayaa masaa'il had iyo goor culammadu ay tilmaamto a wada taqaanin. khilaafku bay culammadu yidhahaan guud ahaan waa 3 nooc. mid waa khilaaf ammaan ah, in layskhilaafo ay sax tahay, oo waa ka uu xaqu yeedhiyo ee looga dan leeya in xaqa lagu sugo oo baatilka lagu dumiyo, sida khilaafka udhexeeya mushrikiinta iyo dadka mu'miniinta ah, ama mu'miniinta iyo ahlu kitaabka iyo ahlu bidac iyo ahlu fusuuq iyo waxaasoo dhan. waayo qolana xaq bay taagantay, qolana baatil bay taagantay. inaan lagu dayanin ama loo ekaanin gaaladoo dhan khilaafka in gaalada la khilaafo iyo waxeedu muctaqidaadka iyo afkaarta iyo waxaaskaas isagu waa xaq. mid kalena culamadu ay ku daraan waxay dhahaan alkhilaaf takhsiibi, waxay ku tilmaamaan khilaafka wax malinaya. yani waxa weeyaan shuuraynu qabsano, qof markuu musi yidhaahdo haddii aniga waxaasi ka gedisan arkayana ana soo bandhigo si ra'yigu u bislaado, qofba qadiyada u dhan ka eego dabeetana aynu u gaari karno ra'yi bisaylo aynu gaari karno, isna ma aha ka dembiga. kuwaasoo dhami waa macquul. khilaafka mid kamidi waa madmuun bay yidhahdaana waa mid xun, waa wixii ay hawada naftu yeedhiso. alhawa hawa nafs, waxay dhahan hawadu waa marad nafsiya oo licadam ikhlaas uu keenay, ikhlaas la-aan baa keentay. kaasi inta badan sharaa'icdii waxaasoo dhan uu khilaafsan yihi. waa dan qof uu rabo inuu dadkan u khilaafo dantiisa inuu gaadho daraaddeed. waa khilaafkay tafriiqiga ku sheegaan, isna waa madmuum. khilaafka mid kamidina waxay dhahdaan waa saa'iqun jaais, waa mid ka banaan. waa ka had iyo goor farciyaadka ka dhaca ee masaa'ilka aqbala in laga ijtihaado, ee aqbala in niqaash laga galo haddii aanu xuduuddiisa ka bixin. waxaan leenahay kan u dambeeya isaga haddaan iska soo koobo, waa mid jaa-isa ayay culamadu ku tilmaamaan. waxa isweydiinta le maxaa keena in layiskhilaafo? maxaa keena? ashyaa tiro badan baa la sheegaa. culamaduna qadiiman wa xadiisan wax badan baa laga qoray. gaar ahaan fuqahada muslimiintu waxay ka mid yihiin dadka ugu badan ee soo bandhiga asbaabta khilaaf keeni karta, gaar ahaan alkhilaaf bayna alaima alaclaam, culamada waaweyn waxyaabahay ku kala ra'yigiin. laakiin masalada had iyo goor culamada isku qabtaan iyada waxaan u celin karaa shay waaxid oo ah
waa duruuf ilmacluuma, shayga kan laysku khilaafsay ama macluumadatan aqoonta loo leeyahay bay ku xidhanta. masalan inuu daliilku labada caalim midna gaadhay midna aanu gaadhin, oo saxaabo waaweyn ay ka dhacday taas oo kale. masalan markii shaam ay tageen ee daacuunku ka dilaacay ee la shiray ee laisweydiiyey meeshan daacuun ka dilaacay miyaa laga baxaya mise waa la joogaya lagu murmay, iyadoo laiska muransayo ra'yigu iskhilaafsan yahay buu yimi cabdiraxmaan ibnu cawf xadiiskii bukhaari suu sheegayey. dabeetana xadiis nebigu yiri buu calayhi salaatu wasalaam sheegay. markii xadiiskii la ogaaday intaha alkhilaafkii u dhammaaday, waayo waxa uu muranku u jiray waxay ahaydun masaladasan baan daliil loo haysan. waxaa kamida masalan ra'yi masalan caliy bn abi aalib iyo ibn cabaas iyo masaladan atwal ajalaynka ay yidhaahdaan ay iyagu ra'yiga ka qabeen, laakin xadiisu subayciya uu isna sheegayo caddaynayo ra'yiga saxiixku yahay. yani waan iska soo koobaya kuwaasoo ma rabo inaan idinku sii badiyo. waxaa kamida baan odhan karnaa in riwaayadatan ama xadiidkan ama masaladan la daliishanay midna agtiisa uu ku sugmay midna agtiisa aanu ku sugmin. masalan qisadii faatimata bintu qays, gabadha 3 lagu furaa, inay sukno leedahay iyo inaanay lahayn cumarna sida qabay. gabadha tani ay sheegtay ra'yigii cumar mid ka gedisan, iyadoo weliba soo naqlinaysa inuu nabigu xukumay calayhi salaatu wasalaam. ee cumar uu isna ku adkeysanaya anigu ra'yi gabadheed uga tegi maayo, isagoo ixtimaal ah gabadhan inay waxilowday ama aanay si fiican wax u garanay ama caynkaasi. oo cumar warkay gabadha talaaqa 3 lagu furay inay nafaqa iyo leedahay, maxay ana laha nafaqa wa sukna. laakin xadiiska islaamtani faatimata bintu qays khilaafsanaa oo inaanay nafaqa iyo sukna toona lahayn. masalan waxaa dhici karta khilaafku inuu yahay lafdigan ku soo arooray xadiidka ama qur-aan ku soo arooray oo sidii loo sharxaya ama loo macnaynayo culamadu ay aragti kala gedisan ka yeelatay. yani muraadkii u alla ka lahaa subxaana watacaala isku si looga fahmin. aw laamastum nisaaga wada taqaanin oo kale masalada waysada ku saabsanay, ama nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku laa yusaliyana axad alcasra ila fi bani qurayda, waa alfaad waadixoo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam. saxaabada markuu yihi qofna yuu salaad tukanin maanta casar ilaa iyo inta laga gaadhayo bani qurayda oo lagu duulayay mooyaane. dhexda markii la marayay bay salaada qiiro gashay. raggii bar waxay dhaha waa tukanaynaa, barna waxay dhaha war waa iska soconayna. qola waxay dhaha waa tukanaynaa iyo waxay dhaheen nabigu calayhi salaatu wasalaam weedhana yaan la tukanin casar in halkaa la gaadho, dan kale nebigu kamuu lahayne degdegayun buu lahaa. salaada waktigu waa waktigeediyo lama bedelin. qolana waxay dhahdeen maya, markii hore isagaa nebigu yihi casarka waktigaa tukada, iminkana isagaa ilaha tukanina ilaa bani quraydo la gaadho mooyaane. bani quraydo aanu gaadho mooyaane tukan mayna ba markaanu bani quraydo tagnaa baanu tukanayna. qolana way iska tukatay, qolana waa iska safartay, waa iska socotay. maqribka dabadiisii bay tukadeen, dhexdaa cadeediba kusii dhacda. laakiin markii u dambe ay xaggii tageen bani quraydo ayay salaadoodii tukadeen. labada kooxood kooxna nebigu ma maagin calayhi salaatu wasalaam, waayo weedhuu nebigu yidhin bay labaduba doonayeen inay fuliyaan. waxaan leenahay waxaa dhici karta in masaladu ay tahay masale daliilkeeda nina aftiisa ay sugan tahay oo u arkayo daliilkan inuu haabit yahay, nina u arkayo inaanu haabit iyo wixii dhowtoonahay, bale laga yaabo laba daraf oo aada u kala fog inay kala joogaan. masalan tusaale basiita haddaan idin siiyo, alimaam ibnu taymiya raximah llah wuxuu ku tilmaamaya xadiidu salaati tasbiix. wuxuu leeyahy xadiidkaasi waa kadbun calaa rasuuli illah, waa been lagu been abuurtay nebiga waxba kama asixin. aimo badan oo kalena waa ku raacsisantay. bal asheekh ibnu cusaymiin wuxuu leeyahay laa ashaku annaha bidca, kama shakisni buu leeyahay in salaatu tasbiix salaada la yidhaahde inay bidco tahay, kama shakisni. masaladu sheekh culamadaas ay halkaa ka taagantahay. masalan alimaam alalbaniy nuquushiisasna wuxuu ku tilmaamaya, ama ibnu xajar alxaafid ibnu xajar mishkaat ilmasaabix axaadiista mawduuca lagu tilmaamo marka hadlayo wuxuu tilmaamaya, wuxuu leeyahay alimaam alxaakim iyo imaam dahabi labaduba waxay tilmaameen xadiidku inuu qawi yahay. markaasuu albanina leeyahay waxa xaq ah siday labadaasi imaam ku tageen, waayo xadiidku shawaahid tiro badan buu leeyahy oo qofka u fiirsada
ويقينسنaya inuu xadiidkani asal leeyahay anigoo masalada ku khilaafiya buu yihi cid kasta oo wadci ku sheegtay ama se baatil ku sheegtay. walidalik ba xadiidkaasi masalan alkhatiib albagdaadiy jus buu kaamila buu ka qoray, bale alxaafid daarqutniy qabla jus kaamila buu isna ka qoray, bale alcalaama abulxasanaat allaknawi isna kitaab dhan buu masaladasan ka ururiyey, bale alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay 7 saxaabi in ka badan ama 10 ugu yaraan saxaabida masaladani ka sugnaa. masalada ragga kaniisada sugayaan culamada waxay leeyihiin waa bidca laa asla laha. idan qolana agtooda waxa sugnaaday masaladan daliilkay daliishanayeen, qolana ma sugnaanin. waa masaa'il dhici karta. waan iska soo koobaya masaa'ilka fiqiga iyo asbaabteeda, waayo kutub badan baana laga qoray. waa min axsani ma kutub waxa kamid ah rafci almalaam can a'imat alaclaam lilimaam ibn taymiya raximah llah. laakin waxayn leenahay iyada masalada fiqiga waxaynaga filan qawaacid yaroo kooban aynu tilmaamno oo ah asal bay dadka muslimiinta isku waafaqsayn odhanaya iimaanka xaqa ahi iyo walictisaam bidiin illah inuu dadka waajib ku yihi uu yahayna waxa hanuuninaya dadka khilaafkooda yaraynaya. fain aamanuu bimili ma aamantum bih faqad ihtadow baa ilahay yihi wain tawallow fainama hum fii shiqaaq wain aladiina اkhtalafuu fi lkitaabi lafii shiqaaqin baciid. shareecada oo laga tagaayadu ayaa khilaafka badan iyo masaa'ibta oo dham ay ka timaada. shayga labaad ee qaacidada ay isku waafaqtay dadka muslimiinta iyo wuxuu yeesna diinta tani inay dhamaystiran tahay, alla subxaana watacaala inuu dhamaystiray. khilaafka culamadu wax isku khilaafaan macnaheedu inaanu marnaba ahayn diintii in badhlumay ama nuqsaani inay ku jirto ama caynka kan, ee inuu yahay un dadka badh oo daliilku u cadaan waayo ama si fiican wax u fahmi waayo, laakin diintu inay kaamil soo taalo. shayga saddexaad aan tilmaamayna waxa weeyaan inaanu jirin imaam a'imada muslimiinta kamida ee maqbuuliinta ah ee cilmiga lahaa ee cilmigooda kalsoonida lagu qabay iyo diintooda ammaanada lagu qabay cid u qasbida inay ilaah iyo rasuulkiisa khilaafta inaanay ku jirin, ee uu ka imanayay masalo kasto ay kitaab iyo sunno ku khilaafaan wa khuliqa alinsaanu daciifa ay ka imanayay khata unay ku dhaceen inay noqonaysay. isla markaa qaacidada kale taalla waxa ay mar kasta oo mid kamida sababta ay u cadaato ama masalada gafkeedu u cadaadaba waxay ahaayeen kuwo xaqa usoo noqda, siduu imaamu shaafici uu ku tilmaamayay waxaan weli qof lamaan doodin buu yihi ilaa iyo waxaan jeclaysan jiray in ilaahay isaga carabkiisa xaqa ku muujiyo, isagu inuu xaqa carabkiisa uu ku muujiyo. taas waa masaa'il iska caama oo fii baabi lfiqi laga yaabo inay ku saabsan tahay, laakiin iyada aan rabay inay iska guud maro. waxaan jeclay inaan in badan ka waramo ama si aan tilmaamo alasbaab alcaama lilkhilaaf dhammaantiisa. waxaa laga yaaba masaa'ilka ugu badan inaan isku haynaaba inaanay fiqiba ahayn. sababtan weyne keenta inta badan dadku inuu iskhilaafo. kow waxa keena dadka in badjahli badan ku sugan yihin. ilahay baa qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya isagoo ahlu kitaabka inooga waramaya fanasuu xada mima dukiruu bih faagraynaa baynahum alcadaawata waalbagdaaa ilaa ywmi alqiyaama. kooxda ilaahay ka waramo alle wuxuu leeyay wixii la faray qeyb kamida bay ka tageen, jahli baa ku dhacay. dabeetana ilaahay wuxuu leeyay waxaanu ku imtixaanay cadaawo iyo uurxumo iyo iskhilaaf baa lagu imtixaamay. qofku hadduu masale jaahil ka yahy indhuhu ka ridaawunbe socankaa maaha. qofku haddaanu masale garanaynin inta badan xukumka ka yimaada gaf buu isaga dhaca. walidalik baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa lilfuqaraai aladiina uxsiruu fi sabiili illahi laa yastatiicuuna darban fi lard yaxsabuhum اljaahilu agniyaءa min atacafuf tacrifuhum bisiimaahum laa yas'aluuna annaasa ilxaafa. dadkii sadaqaadka la siinaya ilahay marka waramay baa waxa uu alle leeyahy waxaa kuwa kamida dadka fuqarada ee masaakiinta ah, kuwaas oo aan shaqaysan karaynin dhibaata haysato, laakiin ilahay wuxuu ku tilmaamaya yaxsabuhum اljaahilu agniyaa. wax magaratadu waxay moodaysaa baa la yidhi inay hani yihiin. sababtu waa maxay? way dhowrsoon yihin. laakiin dadka eldheergaratada ahi waxa ay ku garanayaan calaamaadka kale ee ka muuqda dadka kan. see daraaddeed jaahilku had iyo goor axkaamta kasoo fushaay inay qalad u dhacda ilaahay tilmaamaya.
walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam min calaamaati saaca wuxuu ku tilmaamayay inay cilmiga kan waa la faydi doono culammadu intay dhimato ay soo hadhi doonaan dad badan oo wax magarato ahi oo dadku dabeetana ay yeelan doonaan ru'uusan juhala, xadiiskii bukhaari kuu sheegayay, madax aan waxba garanaynin, dabeetana inta wax la weydiiyo dadka isaga fatwoon doona oo iyana lumaya dadkana luminaya. idan jahligu kow waa sabab ka mida waxyaabaha dadku inay tafaruqu ku dhaco. ummad tafaruqeedu tiro badan yahay haddaad aragto macnaheedu waxa weeyaan jahlaa haysta. shayga labaad waa iyadoo dadka dana gaara iska wataan oo xaqa iyo xaqiiqada ay u khilaafayaan, waa iyadoo dadka dana gaara iska wataan oo xaqa iyo xaqiiqada ay u khilaafayaan. ara'ayta man itakada ilaahu hawaah, kuwa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala. shayga saddexaad waana sida ay inta badan sameeyaan ahlu bidca iyo wixii la nooc, walidalik baa mubtadacada inta badan culamadu ahlulahwa ay ku tilmaamaan. shayga saddexaad wuxuu yahay tacasubka waxa loo yaqaano. qofku intuu cid uun ra'yigiisa iska qaato u arko un ciddaas inay 100% sax tahay, ama dhaqan hore ay haysatay iyo caado iyo wuxuu din gaara ha ahaado, ama nin caalimo kula weyn ha ahaado. dacfigu sidiisubana waa farcun can iddicaai ilcisma bay dhahdaan. tacasubku waa farc bay dhahdaan can iddicaai ilcisma. waa adigoo le ma gafo markaas tidhaahdo may markasta ana xaqa ku taagan waa ma gafo macnaheedu. walidalik baa ilaahay wuxuu ku sifaynaya inuu cismada dadka sheegtay inuu khisaalka ahlu kitaabka lagu yaqaananaysa yaanay kamid ahayn khisaalka lagu yaqaano dadka muuminiinta ah. waida qiila lahum aaminuu bima anzla allah qaluu nu'minu bima unzila calayna wayakfuruuna bima wara'ahu wahuwa alxaqu musadiqan lima macahu. ahlu kitaabka ilaahay wuxuu leeyahy haddii la yidhaahdo rumeeya waxa alla soo dejiyey, waxay odhanaya waxaanu rumaynay wixii anagana lagu soo dejiyey, wixii ka dambeeyena waa ka gaaloobayaan ba alla yidhi, xataa hadduu xaq yahay. qofka mu'minka ahi ma eego qofka, laakiin wuxuu eegaa wuxuu sheegayo. walidalik ba abu hurayra shin baa habeenkii timirtiisa ka dhaxadhi jiray. abu hurayra 3 habeen ba qabtay. habeenkii u dambeeyey markuu dhegay buu wuxuu yidhi warniyo habeen kasta uu isii daayo uu cawda. habeenkii dambe wuxuu warniyo in cilmigan kuu sheegayaayo, cilmigaa qaado iska kay siida. bal sheeg baa la yidhi cilmigaad wada. wuxuu yidhi haddaad aayad kursiga akrido shin dambe balaayadoo dhan waa laga xijaabaya, shaydaan dambe ku doodi kari maayo. wuu iska sii daayey. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka wuxuu ku tilmaamayay sadaqaka wahuwa kaduub. markan run buu kuu sheegay buu nabigu yihi isagoo beenaala ah. yani xataa waaxid min aljinni buu abu hurayra cilmi ka qaadanayay oo wuxuu sheegayaa khuraafaha. laakiin midkani maadaama uu xaq ahaa, xaqu meel kasta uu joogo qofka mu'minkii wuu qaataa. waxaan leenahay khilaafku wuu tiro batay, tiro badnidiisiina xad aada u mushkilada buu noqday. anigoo eegaya ina aada u daalantihiin ayaan intaasoo dhan muqadamo yaroo kooban ka dhigaya, laakiin waxaan jeclay inaan u gudagallo see loo xallilaa. weliba gaar ahaan inagu markaynu soomaali nahay dhibkaa waynu taabatay. hadday wadankii tay, hadday abnaa'i saxwatay, hadda waxaad moodaa dadkaba inaan qofba qof kala socon. waa mushkila qaa'ima fii kulli mujtamacaatina. qabiil laysu khilaafay, siyaasad laysu khilaafay, diin laysu khilaafay, nooc kastaba khilaafkuu tiro batay. waa masala runtii u baahan inaynu in badan ilmaam siino. waa masale xalku aanu fududayn ilaa iyo cidda alla u fudaydiye mooyaane. bale waxaan dareemayaa xataa sida dacfigu xal la-aantu soomaalida halkay ka joogto masalada 3 midun bay ka yaqaaneen. xataa muslim badan inuu la qabo. haddaynu maanta masaajidkan ku muranno xalkaynu naqaana waa 3 midun. inaynu istillo badinta la soriyeeyo laga saaro masaajidka isagoo dhiigu daayo way dhacdaa. dadka badh ba xalka sidaa bidaya haddaynu isma qabanno. wala xalka waxay bidaa inaynu isashtakayno oo kuwa hore yaro dhaamaano waxay dhahay waxba yeena isile, laakiin loo yaro iyo inaynu wax isu qabanno iyo maxkamado iyo gaalada isula tagno oo maanta dhan isashtakayno. kuwa ugu niyadda sanle waxay sameeyaan mataqaana, waxay dhahdaan nimanka alla heshiinayno waxba la yeelan mayne ha qaataan masaajidka, halkaasaynu mid kale ka jeexanayna inage. waa kuwa ugu niyadda fiican leh. yani kooda ha haystaane halkaasaynu mid kale ka jeexanayna inage. waa xalka qura yaqaanin, lakin waxaas midna xal maaha.
waxaa habboon inaynu in badan ka fikirno see wax loo xallili karaa. haddii aynan si fiican u fahmin sida wax loo xallili karo waa dhib runtii aada u tiro badan oo weligeedna ayna haysan karayso. walidalik ayaa waxaan leenahay laba dariiqo oo wax lagu xallilo baa jira inta badan, laakiin mid waliba dariiq bay raacdaa. qole waa dariiqada reer galbeedka. nimanka reer galbeedka la yidhaahdaa ma waxaad u malayntaa inay iswaafaqsan yihin? maya, oo caalam individualista, kullu shay way isku khilaafsan yihin. waddan kastoo galbeed oo aad timaado diin ma wada haysto, waxba ma wada rumaysna, isku aragti maaha. qaar waa yamiin midig mutaطarifiina, qaar waa bidix mutaطarifiina, qaar waa meel dhexdhexaad. diinta kuma midaysna, qaar ilaahba ma rumaysna, qaar kristan bay rumaysan yihin, qaar wax kale ay rumaysan yihin. dhaqan kuma midaysna oo waxa laga yaabaa inay ajinaas kala nooco tiro badan leeyihiin. haddana waxaad moodaa burburkoodu ilaa xad inay xakameeyeen. waa maxay sababta? hunaaka shay waxiid, waxay heleen iyaga aragtidooda qaab khilaafka loo xakamayn karo. qaabka khilaafka loo xakamayn kara ay heleen waxyi uma soo degin, laakiin can ariiqi tajriba bay ku heleen. way isku soo jabeen, intaasoo jeer bay isdileen oo isgumaysteen, laakiin way socon weyde. maray yurub haddaad taariikhdeeda akrido imisunbaa dagaal ka dhex dhacay, imisunbaa boqor la cidhsaday ama wadaad la cidhsaday ama qola ay xoog badatay, ama taariikhda yuruba hore aad bay u madowday. maanta se nooc min alistiqraar bay heleen. waxay gaadheen shay ayaanu odhan karno waxay u yaqaaneen musakanaat. qofku markuu xanuunsado haddii xanuunka laga daweyn kari waayo maxaa la siiyaa? benkilar baa la siiya, soo maaha? yani waxyaabaha kan un atleast inuu qofku xanuunka ilaabi karo. haddii aan xanuunka si fiican looga daweyn karaynin waa in xanuunka laylowsiin karaa. waxay reer galbeedku qaateen dariiqo aan cadaalad ku salaysnayn oo xaqa aqoon, laakiin taqaano masalo kaloo ah inaan dhibtu dhicin. waa dariiqo ah kulamaa xanuunkuu soo kacaba in loo badiyo un tabletka la siinayo si qofku u yaro dareemi karo raaxo. waa waxa dimuqraatiyada loo yaqaano. waxa laga yaaba dadkiina badan ay dimuqraatiyada moodayaan cilmi maaha. waa tajriba bini aadam uu sameeyey oo aqwaar kala gediso soo martay. waxay gaadheen xad ah dimuqraatiyada tan waxaana ay leedahay oo baarlamaana oo intikaaba oo quwa xoriyat aliclaama oo miidiya ah oo waxaan oo dhami waa shay waaxid. waxa weeyaan heshiin weyne saynu u kala baxnaa bay yidhahdeen reer galbeed. war heshiin weyne saynu u kala baxnaa. waxaa la yidhi ninkii 50% helunbaa siisaqa ayay soconaysaa. intaha lamr waxay gaadheen go-aan odhanaya si kale ku kala bixi weyne diin iskuma waafaqsanin waxba maxaynu ku kala baxnaa? waxa la yidhi waxaynu ku kala baxnaa ninkii 50% helow meesha xukun taadu ha ka socoto, ka kalow maxaad qabanaysaa markaa? waxa la yidhi qawaacid lucba dhowr sanaan anigu haysanayaaye adna waxaan ku siinaya farsamada soo loo cayaaray wakaa dadkii kasoo dhaadhacsa inaad 50% hesho. maalintaad 50% hesho waa kaaga daadegaya. ma cadaalad baa ma xaq baa leedahay? maya. qowmuluudku hadday qabsadaan dadkao dhan qowmuluudkay ka dhigayaan. kuwiina kaloo diidani soo cayaara weeyaan lucbada. fadalu haddaa meesha iman kartaan kaalaya. wantaha alamr. idan waxay gaadheen aragti odhanaysa war dilkan iyo waxa kan ku kala macaashi weyno kala xoog badan weynaye aynu waxeena kan ku xalilano. xaq iyo baatilku haddii la yidhaha shay xaq iyo baatil had loo eego in miisaan jira. mar haddaanu miisaan jirin ma xaq iyo baatil ma soconayo. mawaajiintii wax lagu qiyaasayana iskuma waafaqsano. kana waa shuuci, kana waa capitalism, kani waa dhexdhexaad oo waa moderate, kani waa christianity oo diin bu haysta, kani diinba ma haysto, kani waa dadka xun, kani ma aha. waxba iskuma waafaqsana. laba qof oo iswaafaqsani ma jiro. individual kasta, qof kasta oo yurub jooga waa caalamun bidaati, afkaartiisa iyo aragtidiisa iyo wixiisa. laakiin waxaa la yidhi wixii xeer inoo ahi waxa weeyaan ninkii
ninkii boqolkiiba 51 helo ama xisbigii ugu batow taada ha ku socoto. dastuur caamina inoo jiro. dastuurka maxaynu ka yeelnaa? waxa la yidhi dastuurkana kii ninkii helow isna waxbaa ka bedeli karta. qofkiiba 70 meelaha isaga yaraadkeena baa la yidhi ayuu lucbada tan badan ku beeri. dee waaye marar baa loo baahan qodob laga bedelo ama wax lagu daro fadal baa la yidhi isagana aynu nisbadu yaro kordhino suusa ka dhigno. idan maa calayka bay dhahan korkaaga ma saara ilaa iyo inaad qawaacid lucba qaabka licbadan loo cayaaro inaad wafsato mooyaane. intikhaabaadku waxay ku go-aan markaa reklaamaha xayeysiiska kan iyo ninkan hadlaya ee xisbiga u hadlaya aftahamadiisa iyo wax kasta madooba nin baa doonaya inuu caddaan idin tusiyo oo xisbigiisa ra'yigan qabo saasuu dadku wada dadweynahan wax ka dhaadhacso. maalinta aad dadweynaha tidhahda lele caqligoodii xaggaagaad u shubtay eega un waxay kuugu ridaan baa layidhi. si fursaddaa nin walbana loo siiyana sanawaadka hala yareey. 4 sanaad meesha fushanaanaysa ama 5 sano 5 sano kadibna mar kale hala isugu rido. waa ariiqa lagu kala bixi karo oo ay ku kala baxeen. ariiqo kalea jirta oo ah ariiqa alislaamiya. iyada ta saddexaad ka hadli maayo waa ariiqada dictatorka anaa idin haynaye intiina kale maa uriikum ilaa maa ara. iyadu waa tii fircawn. waxaan arka mooyaane cid kale wax ma arki karto. iyadu waa nidaamkii fircawn. marka taa iyada inaga reeb. ariiqo kalea jirta oo ah ariiqada islaamku u yaqaano oo iyadu sheegaysa tawaabit inay jirayso wax sugan oo dadku miisaan u ah oo dadku ku noqon karo oo ku qiimeyn karo oo iyana qaab loo kala baxa leh. intaanan markaa taa sharxin muslimiinta dhibka ugu badane maanta haysata aniga aragtidayda waxay ku salaysantahay labadan dariiqaan sheegayo midna ma aaminsana. maaha dad diin beelay oo la ninkii uun qawaacid lucba dimuqraatiya badiya ha sheego. bale inaga haddaynu soomaalina masala haddaynu idhahno aan qawaacid lucba dimuqraatiya qaadano xataa inaynu reeraheena tiradooda run ka sheegno ma ogolin. nin walba reerkooda soomaali ugu badan. saa daraadeed yani qaab aynu isku waafaqaynaa ma jiro. muslimiinta badan ee caalamu saaliska ka jirtaa waxa weeyaan fikradday qaateen westranku may qaadan. waa mid kii islaamkana may qaadan. waa laba. maxaa la qaatay marka? waa mudabdabiina bayna dalik laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaa. idan dee la heli maayo deganaanshiye ma dhacayo. mayba anigu min ducaati dimuqraatiya oo naygu ku yeelaya dimuqraasi qaasa ama kan qaasa. laakiin waxaan tilmaamayaa waxyaabaha koowaad ee keenay inuu degi waayo muslimku oo wax isku waafiqi waayo oo wax xalilan kari waayo. waxa kamid a baan leenahay may qaadanin duruqda lagu xalilo khilaafka iyadoo la ogyahay inay iskhilaafayaan. soomaalidu maxay ku mahmaadaa? maan rag bay idhaahdaan. waa mudacyaadkii. mudaca waa la yaqaanaa baan umalaynaya waa lahjaadka soomaaliyeed kamid e. yani mudacu waa baalkan yare haamaa lagu talo. mudac haddaad mudac afka u saarto wuu fiiqayo dhan unbu iska dhaafaya. lagama yaabo inaad la hesho labada af. marka la idhaha maan rag waa mudacyaadkii macnaheedu waxa weeyaan kolleyba dhan unbaa ra'yigeenu iska dhaafaya. lagama yaabo inaynu si toosa wax walba 100% inaynu isugu waafaqi karno. idan waa inuu jiraa mar haddaynu ra'yigii ku kala nooc noqonayno qaab aynu wax u dhexdhexaadsan karno ama qaab aynu wax u xalilan karno. waxa aan rabo galabta inaan soo bandhiga markaa wuxuu u badnaan doonaa inaan soo bandhigo ra'yiga islaamiga ah oo aan u arkayo inuu noqon karo al-aslam aynu wax ku xalilan karno. islaamku wuxuu ina farayaa marka koowaad furqadu inay macsiyatay. dadku inuu kala yaaco inay macsi tahay uu u baahan yahay dadku in looga digo. waa muqadamaadka intaanan gaadhin usuusha la raacayo. waxaan leenahay furqadu waa macsiyad aynu u baahanay inaynu in badan ka fogaano. waayo ilaahay baa wuxuu ina leeyahy walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat. waar ha noqonina baa ilahay leeyahy subxaana watacala sidii kuwii kala tegey ee iskhilaafay kadib markii bayinaadku cadaynuhu xagga alle markay uga yimaadeen. ilahay baa wuxuu leeyahy walaa takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica kulu xizbin bima ladayhim farixuun. wara ka mid noqonina ba alla leeyahy subxaana watacaala
mushrikiinta ha ka mid noqonina. mushrikiintan laynooga digaya waa kuwe ilaahay baa wuxuu leeyahy waa min aladiina faraquu diinahum, kuwii diintooda kala kaxkaxeeyey ee kooxaha noqday ee koox waliba waxay haysato ku farax noqotay. bal islaamku wuxuu ina faraya furqadu inay tahay nooc min alcadaab ilaahay uu soo dejiyo, nooc dadka loo cadaababa inay ka mid tahay. walidalika baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul huwa alqadiru cala an yabcasa calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisakum shiica wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd undur kayfa nusarifu laayaati lacalahum yafqahuun. alle wuxuu awoodaa subxaana wa tacaala inuu guudka cadaab idinkaga keeno, wuxuu kaloo awoodaa inuu hoosta balaayo kale idinkaga soo saaro, wuxuu kaloo awoodaa ilahay inta kooxa idinka dhiga inuu madaxa isukin geliyo oo qolaba qolada kale qadhaadhkeeda la dhadhansiiyo. bal u fiirsada baa ilahay leeya aayaadkasaan idinku balbalaadiyey. waa nooc min alcadaab furqadan iyo dagaalkan iyo waxa kane. waxaan leenahay marka muqadamo waxa waa inaynu garanno marka hore furqadu inay macsitay. waa mar labaad si aynu xal u helno waa inaynu garannaa ma-aalka ama gunta ama waxa ka soo baxaya markaynu iskhilaafno. haddaynu taa garanno oo inala weynaato waxaynu ku xisaabtamaynaa in badan inaynu xal raadino. furqo waxa ka soo baxa waa halaag, wax kale kama soo baxaan. ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay waatiicu allaha warasuulah walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca asaabiriin. war aliga rasuul yeela baa alla leeyay subxaana wa tacaala, war ha murmino ha isqabanina baa ilaahay leeyay. haddii kane ay dhacdo intaad murantaan oo isqabataan wixiina xali weydaan maxaa dhacaya? ilahay natiijada uu inoo sheegaya waxaa laleeyahy fatafshaluu. luqada carbeed fa'da waxay idhaahdaan waa fa litacqiib watartiib, yani adawaat alcadfi ama xuruuf alcadfiga luqada carbeed waxa wax conjectionska wax isku xidha macaani kala nooca bay leeyihin. qaar waxay tilmaamaan labada shay inaanay isku xigeen waxba kama sheegaan. jaa muxamedun wa caliyun haddaad tidhahdo maxamed iyo cali baa yimi, ma sheegayo kii soo horeeyey waktiga udhaxeeyey, waxba kama waramayo wowgu. haddaad tidhahdo jaa caliyun uma muxamedun waxa uu sheegaya tartiibun inuu cali yimi kadibna inuu yimi maxamed, laakin taimka ma sheegayo, intanadba udhexeeya laga yaaba. laakin haddaad tidhahdo jaa caliyun fa muxamedun haddaad tidhahdo macnaheed waxa weyaan inuu cali yimi markiibana inuu ku daba jiro kii kalena uu ku fan jiray way culamadii naxwe soomaalida odhan jiray, yani wuu daba socday taimuu dhan ma dhexaynin. ilahay halkan fa buu ku isticmaalay. waxaa laleeyahy walaa tanaazacu, waar ha murmino ha isqabanino caynkan. haddaad taasi dhacdo xal weydaan maxaa dhacaya? ilahay wuxuu leeyay fatafshalu, waa fashilaysaan baa la yidhi, watadhaba riixukum, xooggiina iyo dowladnimadiina iyo dadnimadiinana waa la waayaya. waxaan u malaynaya masalada ninka soomaaliyeed inaan loo sharxaynin. ilahay wuxuu leey war ha isqabanina, haddaa isqabataan xal raadiya. haddii kaa la waayaba laleeya waxa ka dambeeya waa in idinka laydin waayo iyo dowladnimadiina iyo dadnimadiinaba. maxaa ilaahay aayadda tacqiib uga dhigay? inaynan degdegine xal raadino. wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa ilahay leeyahy. aayadda tacqiibkeedu waa kaa, war sabra baa ilaahay leeyahy. ilahay wuxuu maciisa iyo kuwa sabree qadaayaadkiina in badan sabri iyo dulqaad ku daya. sida daraaddeed furqadu inay xun tahay daraaddeed ayaa nabiyullaahi haaruun calayhi asalaam markuu walaalkii ka tegey nebi muuse calayhi salaam oo lagaga tegay reer banu israiil uu sii wacdiye wuxuu sii sheegay reer banu israiil waa kii saamiri waale bar ka mid ay dibiga caabudeen. kamuu tegin nabiyullaahi haaruune in badan wuxuu jiri niman sax waa sa diideenoo way tunjileecsadeen. weliba muuse markuu soo noqdayna wuxuu arkay nimankiioo dibi caabudayo wuu cadhooday. alwaaxdiina intuu daadiyey ayuu walaalkii gabka iyo timaha dhuftay isagoo cadhaysanoo leh maxaa kuu diiday inaad iga daba timaado markaad waxa kan aragtay? cudurdaar wuxuu ka dhigtay shay qura oo aayaadka ku qoran fii suurati taah. qaala ya bna umma laa taakud bilixyati walaa bira'si inii khashiitu an taquula faraqta bayna bani israa'iila walam tarqub qawli. war hooyaday kay dhashayow buu leeyay dabka iyo madaxa toona hayjiidi, waxaan ka cabsaday inaad istidhaahdo reer banu israa'iil baad kala qaybisay adigaan warkayga sugina.
waan arkayaa inay gaalnimo cad ku sugan yihiin waxaan rabay inaynu talada isku soo gaadhno meel ka wada istaagno ee gaalnimo iyagoo ku sugan baan weli lasii dhex joogay anigoo ka cabsanayey inaad hadhow ugu eedayso tiraahdo ina khashiita an taquula faraqta bayna bani israa'iila walam tarqub qawli. sida daraaddeed furqadu xalkeeda waxaa ka mid a inaad jaratid hadday timaado waxa ka dambaynaya wuxuu yihi haddaynu xal weyno inaan waxaana inaga dhexeeya jiraynina waxa ka dambaynaya halaag yahay in suuraddaasi kuu cadday waayo suuraddaasi hadday maskaxdaada ku cadday inaad xal raadisaadaad ka doorbidaysaa. walihaada sabab ayaa waxaynu leenahay furqadu maadaama uu halaag yahay iyo dad in la gumaysan karo ayaa qur-aanku wuxuuna baraya inay tahay falsafada siyaasadeed ee uu adeegsado ku kasta oo raba inuu dad gumaysto. waxaynu waktiyada tan maqlaa dad yidhahdo siyaasadda ingiriiska maxay ahaan jirtay divide and rule baynu maqlaa qaybis oo xukun, laakiin maaha siyaasada ingiriisku keenay waa siyaasadii fircawn lahaa waa madhabu fircawn fi siyaasa waa madhabku fircoon taagnaa ee maamulka uu ka taagnaayo siyaasadda waxaa la ydhaha ilahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyay ina fircawna calaa fi lard wajacala ahlaha shiyaca ystadcifu طaa'ifata minhm yudabixu abnaa'ahum wayastaxyii nisaa'ahum inahu kana min almufsidiin baa ilahay yihi. ilahi wuxuu leey fircawn wuu qooqay oo dhulka uu ku kibray, laakiin maxaa ka dhiga qof inuu dad ku qooqo? waxaa ka dhiga masalada tan wajacala ahlaha shiyaca baa ilahay yihi. dadkan uu ku dhex qooqay kooxuu ka dhigtay u kala qaybqaybiye, qaar la soo dhaweeye, qaar la fogeeye, qaar la maago. bulshada markaad qaybsato hadday kuu qaybsanto waad gumaysan kartaa markaa adiguna waayo iyadaa badno xoogeedi ku raacsay badno kaasoo horta iyadumaad ku tumaysaa. saa daraaddeed baa ilahay wuxuu leeyay fircawn wuxuu adeegsaday wajacala ahlaha shiica baa ilahay yihi. dadkeediibuu kooxa ka dhigay, markuu kooxa ka dhigay maxaa soo baxay yastadcifu taa'ifatan minhum baa ilahay yihi. koox ka midii markaa gumaystay markuu dadkii qaybqaybiye isku ogaaday qayb in isaga la jirto ayuu qaybtii reer banu israa'iil ha gumaystay oo uu ku xukumay gumaysi kii fool xumaayo ah reer dhan inuu yidhaahdo rag ma dhashaan, wixii wiil ka dhashay hala dilo, dumarkuun ha loo daayo. xukunkiisana kaasuu noqday reerka ku gumaysa. idan xataa isticmaarku ma suurtagalaha inuu gumaysi dad gumaysto ilaa iyo inuu dadka qaybiyo mooyaane. ummadda midda ahi ma aha ummad la gumaysan karo. islaamkuna walidalik buu dadka muslimiinta wuxuu ugu yeedhayaa inay noqdaan kamathali ljasad alwaaxid, jir qura inay isku noqdaan, waayo laga xoog badan kari maayo markaa, laakiin inta ay kala fog yihiin way dhacaysaa. falsafadaasi uu fircoon fahmay ayaa waskuna fahmay, reer galbeedkuna taas buu gartay. dabeetana wuxuu gartay inuu dadka qaybiyo si uu u xukumi karo. walidalik baa caalamu thalith maanta ma jiro meel dhib ama dagaal ama waxaas ay ka jiraan ilaa iyo duwalka reer galbeed hareerahay kaga jiraan, weliba atraafta kala gedisan bay kala raacsiisan yihin. ee wuu isfeeraariyaayo dhinacyo kala gedisan buu kasoo jeedaa. tujaari aslixadoodi iyo dhaqaalahoodi iyo hubka iiskoodi wixii oo dhan baa dhex socda. bal reer galbeedku markuu tan ogaadayba wuxuu isticmaalayaa kiisana inuu isu keeni karo, ta kalena inuu sii kala dayn karo. yurub ha laysla doondoono, maraykanka intaasoo state ha laysu geeyo, waxbaa laysu geegeynaya si kuwa kalena in lasii kala dayn karo, la yidhaahdo aqaliyaadka xorriyad ha la siiyo, sidana loo kala galo. qaarna waa laysku ururinaya, qaarna waa lasii kala yaacinaya, waxaa laleeyahay ha kala xoroobaan oo taqriiru lmasiir hala wada siiyo. walidalik baa wuxuu tilmaamayay axad alkitaab ayaa wuxuu leeyahay caasimadaha muslimiinta mid kamid aan ku arkay buu hi nin maraykana, waa nin mabaaxista maraykan ka tirsanaan jiray, waa nin takhasusaadkiisii akademiga cilmiga ahaa wuxuu ku qaatay xarakadan muslimiinta alakhwaan almuslimiin la yidhaahdo ayuu buug ka qoro uu ku qaatay takhasuskiisii. waa richard michel baan ku arkay in buu yihi caasimad kamid a caasimadahan carbeed maraya. dabeetana waan la yaabo aan dawlad iyo ciidamo ogeyn, waxaan ku yihi bu war maxaad meesha ka qabanaysaa? wuxuu gu yihi bu yihi waxaan u imi inaan daraaseeyo khilaafaadkan xarakaadka islaamiga udhexeeya. suudiya richard michel muxuu ka baranaya, muxuu ka rabaa? wuu baranayaa si
uu adeegsado khilaafaadka ka dhexeeya inuu buunbuunin karo, ku kala kaxayn karo, isku dili karo, idin karo, wuxuu doonaa ka samayn karo. yani ilaa xad baa loo samaystay maraakis dhan oo cilmiya oo baxsiya inay baadi doonaan furuuqda iyo waxa u dhexdhexeeya dadka muslimiinta iyo caalamka saddexaad. idan wasku wuxuu ogaaday inaan ummad colonization lagu samayn karin, la gumaysan karin ilaa iyo ummadda in la qaybimayo, laakiin ummad kastoo la qaybiyo in loo gumaysan karo economically, socially, politically, everywhere, educationally, si walba in loo gumaysan karo. waxay yidhahdaan culamada funuuntan ka warama miqyaasyada ummadaha lagu qiyaaso waxaa kamida bay yidhahdaan. haddaad aragta bay yidhahdeen dad murankiisa xadayn kari waayey, waxaad ogaataa waa dad dhimanaya. waa cudurada halista ee bulshooyinka ku dhaca ee sheega geeridooda inay timi. saa daraaddeed ba waxay yidhahdeen haddaad aragto dad marka ay murmaan xadayn kari waayo murankooda oo qaab inu xallili kari waayo, waa ummad dhimanaysa bay yidhaahdaan. walidalik ba iyagu si aanay u dhiman waxay garteen inay miinusun sameeyaan, qaabun inay sameeyaan murankooda ay xal kaga gaari karaan, walow badna hala dulmiye. laakiin caalamulislaami waxaad moodaa in la xadayn kari waayo murankii inoo dhexeeyey oo u suurtoobi weyday in xal gaaro laga gaadho. waxay dhahdaan murankoo la xadayn kari waaya waa sign of ignorance bay dhahdaan. waa ummadaha jaahilka waxyaabaa lagu yaqaano bay dhahdaan. dadka aan kobcin waa ka ilahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya? yuhuudda ilahay ka warramay qur-aanka. markaasa waxaa la yihi taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shata. maxaa lagu cileeyey? dalika bianahum qawmun laa yacqiluun baa ilahay yihi. waa dul aan caqliga isticmaalayn baa lagu tilmaamay. idan cadam alcaql wa cadam tafakur waxyaabaha ka dhasha waxaa kamid a in dadku murmo un oo markaa murankaas wuxeedu ku gabagabooba. haddaad aragto dad markaa murmaya un, muranka wax ka dambeeyana waa si laga dagaalun iyo xoog iyo boob. intaa dadka hadday aragtidiisu noqoto waxaad ogsoonaataa ummadatan jahli kii ugu weynaa inuu haysto. jahli aada u badan waa calaamaadka lagu garta bay leeyihin. waxyaabaha jahli uu ku dhaco calaama kamida calaamaadka lagu garto. waxay leena waxaynu u baahanay marka haddaynu dad muslimiina nahay inaynu in badan masaladan ka fakarno, in badan inaynu eegno murankeena inaynu xadayn karno. hadday taasi dhacdo waxaa dhacaya inaynu guulaysan karno, waxaa dhacaya inaynu jiritaan yeelan karno. idan abnaai saxwa aw abnaai alxaraka alislaamiya waxay u baahan yihin inay xadayn karaan murankooda. qabaa'ilka soomaaliyeed waxay u baahan yihin murankooda inay xadayn karaan. siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay u baahan yihin murankooda xadayn karaan. haddii taa la waayo waxa ka dambeeyaan waa inay dulno. waa sababta aynu wax u wada yeelan kari weyne. maanta waxaa laga yaaba wadan kastoo yurub kamida inay soomaalidu filqantay organisation inay dhistaan wuu fududyi. maalin intaa nin u yimaado khayr qabi wuu isku ururin karaa. laakiin cabsi waxaan ka qabaa un bil kadib inuu dumayo. waayo waxaan lahaynin markaynu isqabanno si loo kala baxo. idan mar haddaanu jirin marka la isqabto si loo kala baxo uu yahay inaynu isdilno, inaynu isashtakeyno iyo inaynu kala guurno oo nidhaano jaaliyadaas xun aynu isku qabanay waa mid kale halkaa inooga furo inuu noqdo. xalkaynu garanayna hadduu saddexdaa yahay waxba ma wada lahaan karno. ilahina qur-aanka wuxuu ku tilmaamayo ina kasiira min alkhulataa layabgi bacduhum calaa bacd ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaat. dadka wax isku darsadaabaa ilaahay leeyahy ama dadka isdhex gala inta badani way isku xadgudubtaa. waayo bini aadamkaas ka tamaaca lama waayo qaab dadku isugu xadgudbo. way isdulmiyaan baa ilaahay leeyahy. kuwa qura ee laga soo reebay waa maxay? waa kuwa iimaanka iyo camalka suuba laga helay. ikhwatii fi lcaqiida, muran iyo dhibkii waa ogtiin oo idinkama waramayo. dee soomaaliyaatinina soomaalaan ahay, marka waynu isla garanaynaa kaa iyo dhibta u leeyahy. caalamulislaami waynu kanimo muslimiin waxa haysta baynu aragnaa, iyo dunida saa loogu gumaysta ay mustadcafiin ugu yihin, iyadoo aan dunida laga tiro badnayn, oo aan laga xoolo badnayn, oo aan laga cilmi badnayn. waa sheeko waxa dadka badha isugu sheekeeyaan. nawowi ba halka lagu haystaa within no time baa nawowi caalamulislaami lagu samayn karaa, within no time. laakiin waxa isweydiinta lagaa ka run sheegaya raba inuu sameeyo. waxa isweydiinta loo keligii wuxuu yahay walaa jaamica carabiya baa jiraysa, walaa jaamica islaamiya baa jiraysa, walaa soomaaliya jiraysa, walaa wadan yaroo kasta maanta waa lasii kala burburinaya. wasku wuxuu rabaana inuu sii kala burburiyo. wasku ma jeclaa
dunida cid kaloo isu timaada xataa indhayarka iyo kuwa aan diimo badan haysan inay isu yimaadaan wasku ilaalinaya waayo dan isaga uguma jirto. laakiin iyagu waxay ku tala jiraan inay isu yimaadaan, iyagu waxay ku tala jiraan iyagoo kala afafo kala luqa kala diima waa ka yurub oo laisku sii wadaado. waa loo sabray ilaahay soo inalama ahaa wasbiru in allaha maca saabiriin soo lama laha. iyagoo khilaafaadkooda hadday maanta ku heshiin waayaan waxay ku talagaleen inay sabraan 20 years 50 years. intay iminka socotay sida yurub ku taqaana 5 dowladood baa bilaabay, maanta waa ogtiin inuu dhowr iyo 10 marayso. EU yaa bilaabay, in yar baa bilowday, maanta halkan bay maraya Schengen yaa bilaabay, in yar baa bilaabay. maalinba mid waa loo yeeltolaya in dabeetana waxa lagu talagalaya maalinba si mid loogu weeraya uu soo geli lahaa ilaa iyo inta laga dhigayo inay mid noqon karaan. waa laga yaabaa mar in la yidhaahdo jamaarigta aan ka midowno, jamaarigta waa in la yidhahdo taxiska iyo meelaha kan xuduuduna aan soo yaro furo, mar in la yidhahdo dhaqaale aan ka midowno, euro iyo hal lacagaa wada yeelani. berri waxaa la arkaa inaad aragto iyadoo la yidhahdo siyaasadda aan ka midowno oo baarlamaan keliya ama ra-iisul wasaare keliya ama caynkan. waa step by step, laakiin waxaa la rabaa step la qaaday inaanu dominayno xagga in loo sii socdo. inagu wax laga yaaba intaynu xiisoonno maalin qura inaynu madaxa ka bilowno shirkan caawa intaynu isku wada raacno aan israacno aroortinba hal mushkilado yar inagu imanaysa wuxuu baynu isku dilaynaa sibilahayna isguyen isku maayo marsu qabanayna intaasana u dumaya deetan. waayo waynaynu kulanno ururna maha mushkilada, laakiin one problem inaynu xalila inaynan awoodeeda lahayn. hal mushkilado keliya inaynu xalilayna awoodeeda lahayn. waa fanni runtii u baahan daraasadiis, waa fanni u baahan tarbiye iyo akhlaaq, waa fanni dhaqan u baahan. waxay leenahay islaamku xuluul buu masaladan inooga dhigay. waxa ugu horeeya islaamku marjac buu sameeyey. maskaxyadeeni mar hadday iskhilaafayso meel horta marjac oo isagu absolute value wax lagu tilmaamo, meel aynan isku khilaafsanayn waynu u noqonayno. waa waxyigii xagga alle kasoo degay. ilaahay baa wuxuu inoo sheegay inaynan inagu wax badan garanaynin, isagu se wax badan garanayo. wallahu yaclamu antum laa taclamuun baa ilahay. antum aclamu am illah. ilaahay baa wuxuu inoo sheegay wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila. ilaahay baa inoo sheegay wallahu caliimun khabiir wa fawqa kula dii cilmin caliim. ilahay baa sifatu lcilmi inoo sheegtay. ilahay baa walaa yunabi'uka mitlu khabiir sheegtay. sidoo aan lagu waramayo cid idinku waramaysaa ma jirto. maadaamay taasi jirto ilaahay wuxuu ina leeyahay anaa waxaa absolute valueske miisaanka dhabtaa idin siinaya ee wax ku miisaamanaysaan. waxay u baahan tihiin shay kasta oo miisaamaysaan inaad saartaan oo ku eegtaan, laakiin miisaanki waa kan baa laleeyahy. anaa idin og baa ilaahay leeya inaad iskhilaafi doontaan. kaana annaasu ummatan waaxida fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin waanzala macahum alkitaaba bilxaq liyaxkuma bayna annaasi fiima ikhtalafuu fiihi baa ilahay. dadku mid quray ahaayeen oo aadan baa wada dhale tawxiid bay ku sugnaayeen, waa kala tageen oo gaalo iyo muslim iyo waxbay kala noqdeen. ilahay wuxuu leeyay nebiyaan idiin soo diraa digaya oo idiin bushaaraynaya, kutub baan usoo dhiibay xaqa ku sugan yahay. maxaa sidaa u yeelay baa ilahay leeyay liyaxkuma bayna annaas fiima ikhtalafuu fiih. dadku waxay isku hayaan in lagu kala xukumo baa ilahay leeyahay. ambiyadan iyo rusushan iyo waxyiga waxa loo soo diray inay noqdaan miisaanka aynuu noqonayno. ilahay baa wuxuu leeyay fain tanaasactum fii shay faruduuhu ila allahi waarasuul. waar markaa murantaane arrimiisu kin qabsan weydo alla iyo rasuulkii u celiya baa laleeyahy subxaana wa tacaala. in kuntum tuuminuuna billahi walyawmi alaakhir, alla iyo maalinta qiyaame haddaan rumaysatiin dalika khayrun wa axsanu ta'wiila. idan kitaabka iyo sunuhu ama waxyigu wuxuu u yimi inay inaga mideeyaan arrimaha maanku ina midayn kari waaye. arrimaha jira maanku ina midaynayo kuwaa lama odhan nin kitaab baa laydinka soo dejiyey. scienceska laynama odhan kitaab baa laydinka soo dejiyey, waayo waxaa looga inaynu ka midoobi karno. haddaad masalatin la timaado tiraa waa fisigisa waa caynkan labatarigaanu la teginaa, hadday socon weydo war waa khuraafaa lagu leeyahy. idan lama odhan nin kitaab scienska idinka warramaa laydin soo dejiyo, waayo ilahay wuxuu ogya kan inaynu xal ka gaari karno, inay xaqiiqadu caddaan karto. kitaab tiba laynooma soo dejin, waayo waxaa la ogyahay haddaynu tajaaribteena isticmaalno inay xaqiiqadu caddaan karto. walaakin masaa'ilka inan marnaba gun ka gaari karin ee dhaqaale leh, siyaasada leh, bulsho leh, dhaqan leh, caqiide leh, falsafo leh, aan marnaba basharku isku waafiqin.
falaasafadii dunida oo dham intaasoo kunoo sanadood bay soo jeedeeno hal iskuma waafaqsana, bale madrasa waaxida ka kaalay madaarista kale, madrasa waaxida min madaaris alfalsafa haddaad qaadato mid iskuma waafaqsana. idan waxa qura bini aadamku ilaahay uu leeyahay anaa isku kiin waafajinaya waa wixii maanka bini aadam uu awoodi kari waayey inuu isku waafaqo ayaa ilaahay yidhi anaa idin kala saaraya. halkay gaala yidhahdeen fartaynu ku kala baxayna, gaala waxa la yidhi xaq iyo baatil ma eegno, laakiin farta. sidaa daraaddeed ba iyaga shay shalay xaaraan ahaaba maantana maxay xalaal ahaa. masalan maraykanka khamrigu inta sanadood u xaaraan ahaa 20 sano dhadhow, 15 sanadoodba maraykan congress iyo senate iyo congresska iyo madaxweynaha baytulad saddexduba isku raacay, bal iftaax caamaba la qaado dadkuna uu ku raacay. markaasa weliba lasii fogeeyo layidhi distoorka ha lagu daro khamrigu inuu waddanka mamnuuc ka yihi. 1933 haddana duud loo ogolaaday. maxaa isbedelay? ma cilmi cusuba khamriga laga soo ogaaday inuu khayr ku jiro ama inuu caafimaad wax ka tara, waxba lagama soo ogaado. shay kuraa dhacay uno nimankii siyaasiyiinta unbaa arkay dadkii inuu kacay iyo kuwii khamriga cabaya tahriibkiiyo waxa kano in dee uu cod waayayo deefar waa inuu xag uu cod ka helayo masalada hadduu cod ka helayo waa inuu yidhaahdaa idoorta anaa sanadka dambe khamriga fasaxaye. deefar qaar unbaa soo baxay baarlamaanka iyo kuwana way fasaxeen. laakiin islaamku xaq iyo baatil buu kala yaqaanaa, cadaalad buu yaqaanaa. markaas waa saabit, markaas uu sugan yihi. aragtida bini aadamka ee dimuqraasiya waxaan ku suganay shalay wixii mamnuucaaba maanta xalaala caynkana waa isbedelay. waayo xaq iyo baatil kuma sugna, cilmi kuma salaysna, waxay ku salaysantahay farta la taago. ninkii 51 hele tiisun baa soconaysa, waxay doontaa nool. ilaahay baa wuxuu ina leeyahy subxaana watacaala diinta maxaa loo soo dejiyey? yuriidu allahu an yukhafifa cankum wa khuliqa alinsaanu daciifa baa ilahay yidhi. axkaam badan inta alla kasoo warrama ilaahay wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu idinla doonaya inuu nolosha idin fudaydiyo. waayo bini aadamka ilaahay abuuray isagoo tamar daran, maadaama tamar dara ay jirto waana idin fudaydinaya baa ilaahay leeyahy. waxaan leenahay marka ugu horeyn waxaan u baahanay marjiciyadu inay caddahay. dadka muslimiintii markaasi waxay ku kala baxaan laba shay, mid waa kitaabka iyo sunnaha, midna waa wixii shuruuda iyagu dhigteen almuslimuuna calaa shuruutihim. haddaynu nidaam masaajidkan u dejino oo nidaamkaasi uu kitaabka iyo sunnaha aanu khilaafsanayn u waafaqsan yahay, dadka muslimiinta waxaa saaran inay nidaamkaasi u hogaansanaadaan oo u noqdo waxaynu ku kala baxayno, oo u noqdo problem solutionken iyo problem solvingenu inuu ku salaysay wixii inoo dejisnaa. kaasi waa shay la garanayo. laakiin inkaa la aqbala iyaduna dhaqan bay u baahan tahay. waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo dhaqana. waxay u baahan tahay in la helo atarbiya aljamaaciya, in dadka la baro wada noolaanshiyaha waxa la yidhaahdo iyo inaan la kala maarmaynin iyo ina dadka kale wax la wadaagto. reer magaalnimada la sheegaa macnaheedu waxa weeyaan inuu qofka la baro wada noolaanshiyo. ninka reer baadiyi markay isqabtaan muxuu sameeya? gabadhu yidhaha naawrka isoo qabo, dau ka guuraa in dhul banaan oo kala helayahay. inaga seenu waa kii waa awrka soo qabadii mal allaaliya markaynu isqabano waa awrka isoo qabo waa inaad guurtaa. laakiin reer magaalku daarta ka dhinac foga maysa maxaa sameyn, awr lasoo qabtaa ma jirto. yani waa laabud inaad hesho qaab aad qofkan ula dhaqmi karto oo mushkiladiina aad u xalilan karto. waa inaad ku kortaa tarbiya jamaaciya. tarbiya jamaaciya waa maxay? nadariyaadka ama waxaan la yidhahda theoryga iyo practicalku waa kala nooc. masalan in lagu yidhaahdo dadka in la cafiyaa fiican caynkan aragti ahaan waa wax wada qurux badan leh, laakiin marka ay ku qabsato sida aad yeelaysaa waa wax u baahan inaad soo tajribaysay, waa wax u baahan inaad muddo isku dayeysay waxa kan oo aada isticmaalaysay. aragti kastoo maskaxdaada ku qurux badan macnaheedu maaha dhaqankaagana ina markiiba ka imanayso, ee waxaad u baahantahay in tarbiya jamaaciya lagugu kulmiyo. walidaalika baa dhaqamada wasku masalan wadankan ka imi gaalo wuxuuna waylaada wax runtii aad ka faaidaysan kartana waylaada. waxay rumaysayn wax la yidhaahdo masalan philosophy of educationkooda wuxuu ku salaysayn waxa la yidhahda arbidon demoniska, dad wax wada lahaan kara ama wax wada qabsan kara. ilmaha yar isagoo ku jira elementary schoolka ayaa la baraa xiisad la yidhaha xiisada wada tashiga. hadda waa dugsi hoose, dugsi kalaas 3 4 shanaadna tal wax ka yaqaano. kalaas moota wax la yidhahdaa jira,
xiisada wada tashiga. arday baa laga dhigayaa kalaaska inuu jeerinka u fadhiisto oo arrimaha go-aamiyo, dabeetana inta kalena shuuradii baa la wadaya. ra'ya waxaa la isweydiinaya ardayga habsaama maxaynu ku xukunaaba macalinka la weydiinaya. macalinka waxaa la odhanaya aamo adigu ra'yi kuma darsan kartid, ilmadaasi waxay gaadhaan baa lagu xukumaya. yararkii haddii warqadah loo qoro caynkana lagu sa waxbay sheegayaan, go-aan bay qaadanayaan, go-aankaasaa sabuurada dhinaceeda la sudaa, dabeetana kaasaa lagu dhaqaa. yani waa qaab qofka loo tareen garaynayo inuu maamul geli karo, wax wada lahaan karo, cid la negoshiyad garayn karo. waa mas'ala runtii tarbawiya ah. inaga waxaa laga yaabaa qofku inaanu awoodin ba inuu ku dhegeysto inaad wax wada lahaataan daayo, bal wajhatunada sidaad wax u arkayso inaad u sharaxdo inaanu awoodin. iyadoo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam masalan xadiidka min xadiisi siira kamid oo albaanina taxsiininayo, nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa u yimi cutba ibnu rabiica oo quraysh u soo dirtay oo layidhi nabiga waxaad kala soo hadasha calayhi salaatu wasalaam, arrimahan mashaakil buu inagu hayaaye la soo hadal. wuu yimi nebiga wuxuu ku yihi waxaan rabaa arrimo inaan kaala hadlo, niyow dadkii kala kaxayso waa kanoo mushkilad baad nagu haysaaye, haddaad madaxtinimo waxaan ku doonaysa buu yihi madax baanu kaa dhiganayna, haddaad xoolo doonayso xoolaanu ku siinayna, haddaad boqortooyo doonayso boqor baanu kaa dhigayna, haddii buu yidhi waxaan ku hayaa jinuu ku dardaro ay xanuun tahayna adduun baanu kugu bixinaynaa si lagu daweeyo oo tabiib baanu kuu raadinayna. waxaasu ku hadlayay nebi maxamedna wuu dhegeysanayey, afka kagama doodin oo mu odhan war waxan muxuu ku hadlaya. wuxuu ku yidhi afararta minha ya abalwaliid, ma dhamaysatay hadalkaagiiba weliba ku yidhi, hadalkaagii ma dhamaysatay, wuu ka sugay. markaasuu yihi ha, markaasuu nabigu alayh salaatu wasalaam qur-aanku dul akriyay. yani inagu waxaa inaga lumay inaynu tala wada yeelana waxdaayo xataa inaynu isdhegeysano. haddaad shir soomaaliyeed timaado buuqu intu markiiba bilaabmaaba la kala kacaya, intaan waxbaba las odhan waxaad awoodi kari weyday xataa wax macnale wuu sheegi. jabaniiska waa ummad aada u cajiiba, umamkan caalamka maanta jooga. turuqu shuura ay leeyihiin way ka gedisan yihin wasku sida ay u wadaan. shirkada jabaniiska marka shirkadu ay shirayso khubarada qura looma yeedho, kuwan shaqaalayo wuxuu dhan ba laysugu yeedha. cidda ugu hor hadasha mataqaana, ka ugu hooseeyaa la yidhahda hadalka bilow, kuwa kalena way dhegeystaa. filosofi bay leeyihin yidhaahda aqoonta xagga hoose inta laga ururiyo kor ha u socoto ninka sare ha gaago. waxay ku leeyihiin hadduu ninka khabiirkii hadalka bilaabo ba yidhahdeen oo arrinta markiiba isagu soo bandhigo, dadkii kale aaraadahaya ama way khashilayaan ama markiiba isagaa qancinayo, de maadaama ninku markii horena uu magac lahaa, dhowr shahaadoodna uu sitay, shirkadana uu maamulayo, markuu wax sheego wallahi tiisaasa malaa la qaatay soo dhan. lakin ba yidhaha haddii kan laga bilaabo qof waliba ra'yigiisibuu soo bandhigaya, la cidi kaama horreyni, wixii ay kula ahayd baad soo bandhigaysaa. waxaa la arkaa bay leeyiin khabiirkan aaraa badan oo ka maqnay in lagu kordhiyo oo xaggan ka soo baxdo. yani waa xad ay tawaaduceen ilaa ay isku dayeen shaqaalahan yaro hoose shirkadaan waxba ka ahayn, bal in la heli karo ra'yigiisa shirkadu development si ay u samayso in loo heli karo. waxay leeyiin waxaynu u baahanay tarbiya jamaaciya in la heli karo, oo ah dadkan in la baro in la wada noolaan karo. waxaynu u baahanay in la helo alakhlaaq alislaamiya, oo ah qofka mu'minka inuu mutawaadiciye, oo aanad isweyneyn oo dadka iska cilmi badanin oo aanad moodin inaad ka ra'yi fiicantahay, mahma da-daadu ay weyntahay ama shahaadadahaagu ay tiro badan yahay ama wax akriskaagu tiro badan yihin, inaad ogaato waaxid min albashar inay tahay oo waxna asiibi kara, gesina kara. in naxariisaynu ku dhaqano iyo xilmi iyo dulqaad, in qabadka iyo cadhada uu yaraado, in takaburka iyo xasiga uu yaraado. waxan oo sifaad oo ilaahay uu inoo sheegaya waxa weeyaan waa sifaadka keenaya dadku inaanu iskhilaafin ee wax wada yeelan karo. waxaynu u baahanay inaynu baranno, waxaynu ku tilmaami karna alqawaacid alarbaca oo dadka muslimiinta gaar ahaan aan leeyahay way u baahan yihin. kow, waxaynu u baahanay inaynu baranno inaynu si dhamaystirno oo khayrka intaynu kala qaadano atakaamul watacaawun aw albinaa'i macan. dubinta qof waliba wuu yaqaana, ilahi wuxuu leey watacaawanu cala albiri wataqwa. idan wixii bir iyo taqwa inaynu isku gargaarsano. waxaynu u baahanay inaynu ogaano qofna inaan ilaahay u ballan qaadin cismo, ee qofku inuu gafi karo. walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam kuwa gafay ku tilmaamayay haddana ficladoodun inuu beri ka noqdo ee aanu iyaga beri ka noqo. khaalid ibnu waliid buu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam reer bani jazima
markuu tagayna niman buu laayey intay yidhahdeen saba'na way gafeen inay yidhahdeen aslamna bay garan waayeen. saba'na iyo aslamna waa isku macno dhow yihiin. saba'na carabta hore wax isticmaali jirtay qofku markuu diin ka baxo diin kala galo. saba'na bay yidhahdeen halkii laga rajaynay inay yidhahdaan maxay aslamna. calaa kulli xaal uu laayay. nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. xadiidka bukhaari wuxuu tilmaamaya inuu ku ducaynayo nabigu allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalidi. ilaw beri waxaan kaaga ahay buu nabigu yidhi wixii uu khaalid sameeyey. khaalid baan beri ka ahay nabigu ma odhan. waa khaalid wuu gafay qadiyadda tanna wuu ku qaldamay. waxaa la mid ah usaamata bnu sayd ijtihaadkiisii qaldanay ahaa ninkii laa ilaha illa allah yidhi uu dilay. maxaad ka yeeli doontaa buu nabigu kulahaa maalinta qiyaame laa ilaha illa allah seed ka yeeli. waxyaabaha badane cudurdaarka u keenay. idan qofku wuu gafi karaa isagoo khayr doonayey ee inaynan qofkao dhan tuurin masaladuu gafo ama caynka baynu u baahanay. waxaynu u baahanay inaynu dareenno dadka muslimiinta inay walaalayiin oo ukuwada islaamiga inay dhab noqoto oo ugu yaraan salaamatu sadri inaynu qabno. haddaynan gaadhaynin xaddul ifaaq laabteennu inay nadiif noqoto oo had walaalkaa laabtaadu u xaadhan tahay. waxaynu u baahanay baanu leeyahay markaan soo koobo dhaqan islaamiya oo fiican. ikhwati fi lcaqiida, mawduuca kani waxaan leeyahay maaha mawduuc muxaadaro maalin laysugu yimaado lagu dhamayn karo. laakiin waxaan leenahay waa mawduuc tarbiya u baahan oo daraaso u baahan oo cilmi u baahan. waa mawduuc u baahan yani waxaan walaalada qabtay iyo aniguba aan rajaynay inaan uga dan lahayn inaan maskaxdiina ku abuuro ina asiladan dib isu weydiistaan oo idinku homeere ku qaadataan oo isku daydaan inay xal raadin kartaan. isku daydaan inaa problem solutionka barataan sida mushkiladu markay timaado loo xalilo. waayo taa umaynu furqada kaga baxayna. midna waan idiin sheegayaa muslimiintu laba intay midun raaci la-yiin suurtagal ma aha inay sidan ayiin ka baxaan. imaa inay gaalnimada iska cadaystaan hadday dee rabaan inay gaaloobaan oo taa westranka ah sida loo kala fartaaga badnan yahay in lagu dhaqmayo. imaa in islaamnimo la cadaysto oo ah marjiciyada islaamka saxa in loo noqonayo oo iyana ay fududay si lagu kala baxaa. laakiin tagadubkan ah maalina dimuqraasiyaanu nahay maalina diinta ha lagu dhaqmo reerku maxkamad ha samaysto qolada tani islaamka maalmaa lagu xukumo maalinta tuugta dhimaasho maxaakimta la doorto maalinta kale la tagadubka nooca kana waxba kuma islaaxaya. inaynu baranno inaynu wax wada lahaan karno oo wada maamulan karnana mooyaane waxba ma suurtagala. yani dawladnimo iyo wax ka weyn daayo masaajid yar ama xaraka yar ama wax yar baynan wada wadi karin inta aynan baranin problem solution. inta uu masaladeenu ku salaysantahay marka aynu wax walba isku aragti ka nahayna waynu wada socon karnaa. marka aynu waxyaabaha qaarkood ku khilaafnana bes maalintaa waynu dumaynaa. mar hadday tahay dhismo kasta oo la dhiso anigu shakan ka qabaa inuu sii socon karo haddaan loo helin turuqa loo xalilo khilaafka. wax kastoo a wada yeelanaysaana waxaan idinkula talin lahaa inuu cad yahay maalinta isqabataan saa u kala bixi lahaydeen. wax kastoo a wada yeelanaysaan inuu cad yahay maalinta isqabataan. war westranku xad bay gaadheen shirikaadka masala waawey waynu naqanaa waa multi nation bayna yidhaahdaan iyo waa mutacadid ljinsiyaat intaasoo jinsiyaad kalele shareholder baa kalele waxan. laakiin waxaa jira qaanuun yaro fudud ay yidhaahdaan almu'asisiin dad baa iskale bahashan magaceeda asalka ah intaa un baana kala diri kartaa. balaayiin adigoo kulebaanad haddana ra'yi buuxa ku lahayn ama kuwa kala diri kara aanad ahayn. waayo waxay ugu talagaleen inay xadeeyaan khilaafkooda inay ilaalin karaan. waxaan uga jeedaa waxaasoo dhan inaynu wax baranno inaynu bilowno saynu mushkiladeena u xalili lahayn. inaynu taa ka bilowno nafteena inaynu tarbiyeyno oo ah inaynu baranno hogaansiga ugu horeyn alle inaynu u hogaansanaan. islaamku iyo muslimku aslamtu lilahi markaa ilahay baan isu dhiibay weeyaan. isu dhiibku inu dhab inaga noqdo. ilahay rasuul waxay go-aamiyaan inay noqdaan wixii kama dambaysta ahaa. masalada intaanu daliilku ku cadayn hadal iyo war iyo waxbaad keeni kartaa. laakiin marka daliil cadaado iyo ilaahay halkuu inala rabo inuu muranku hadho waxay dadkii muslimiinta hore ku guuleysteenna waa taa. waxaan kusoo koobayaa ilahay xaq ahayna waafajiyo. wallahu aclam wabilahi tawfiiq.